Somaliland waxay noqonaysaa meel ka tirsan Soomaaliya. السلام الله عليكم ورحمة الله. سؤال هذا صاحب يال هلقاني وحورشة تيفي صاحب يال بلورت أنت أين أوجد من مهمة الرياكشن كان عاوة أين وضعنا فيديو جاس جوابتني إذن كأي الله إذا قربوا Somaliland waxay noqonaysaa meel ka tirsan Soomaaliya. Aguriya halka waxaan ku dirnaa laba fariin hadduu Xasan Sheekh uu yimaado la sacaanood uu ka soo dago yimaado waxaan ku bixi doonaa bila amar wixii halka ka dhacay ugu shaqo kumali talabaada kale waxa weeye haddii waxaan lagu wada socdo waxa هو طبعا جواب هينو جواب تيدنا وإنه لك كومنتيجه لكن رياكشن كان عاوة ودارية أما مهمة دي ستهاي مدحوين اللفظ قرن أو إسكديده إفيته وقدر حسن الشيخ محمود أو الله بطلق عليه إن أو قصة قيب قرأ على مسارك مدحوينها دولة وغوي بري ومدحوين فردية كاس أو جبي أهم بإسكا كان سلي إسكديده هذا عدنا أو شيء مدحوين حسن الشيخ إن أوصل كقيب قالين على مسار فردية laascaanoodna uusan cagaheeda soo dhigay haddaba waxa la isweydiinaya dad badan ka daahsoon waxyaabaha sababay in uu madaxweyne lafta galeen uu yiraahdo laascaanood cagaheyga dhigi maayo hadal cadna uu ku yiraahdo madaxii ugu sareeyay ee dawladda haddaba cadeyntii waa tan fikirkaaguna waa inoo dhanka commentiga markaad ka bogato cadeyntana waa tan ila daawo sida loo xaqiijiyay boqolkiiba 90 waa dad ka soo jeeda koonfur galbeed una tagay meesha inay si bini'aadanimo leh ay uga shaqeystaan nolol ka suubiyaan ayna u tageen in ay nabad ku helaan nabadna ku noolaadaan ficilkii asaga ahaa sida lagu bedelay oo dadkaas loo dhibaateeyay aad iyo aad baan uga xunnahay waana cambaaraynaynaa wax aan filaynayna ma aha wax dhaqan bini'aadanimo lehna ma aha intaas kadib waxaan u soo jeedinaynaa maamulka Somaliland dadkaas muwaadiniinta ah oo Soomaaliyeed oo ka soo jeeda koonfur galbeed oo dad muslim ah haddii aad u aragtaan inaad deegaanadiina aysan joogaynin ama aysan ku noolaan karin si xornimo leh oo bini'aadanimo leh ayagii ilmahooda yaan la kala rarin ayagii xoolahooda yaan la kala rarin nin saaka gurigiisa ka soo tegay asoon ilmaha ku noqonin yaan la raafin oo baabuur la saarin inta waqti la siiyo shalayba ayagaa yimide hal la yidhaaho walaalayaalow naga noqda hal la yidhaaho laakiin si dhaqanka bini'aadanka ka baxsan yaan lagu suubinin yaan leeyahay soo jeedinayaa waxaana sugaynaa